toddobaadkan waxaan idinkugu bedelnay barnaamijka Soomaalida maanta ee aan Arbaco walba idinkugu soo bandhigi jirnay barnaamij aan uga sheekeynayno dhibaatada dhalinyarada ay kala kulmaan dagaalada. Dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya xilligan koox walba oo bulshada ka mid ah saameyn gaar ah ayay ku reebeen walow qataraha ay kala daran yihiin. inkastoo burburkii kadib nidaam waxbarasho mid shaqo iyo mid horumarineed oo wanaagsan aanay helin dhalinyarada ayaa haddana waxaa si dheer dhibaatooyin ay kala kulmaan dagaalada maadaama dhinac walba oo ka mid ah dhinacyada isticmaala hubka uu adeegsado dhalinyaro Soomaaliyeed ka sokow arrimahaasi waxaa jira dhibaatooyin kale oo dhalinyarada loobayay ay ku hayaan kuwa aan hubaysnayn waxaana falalkaasi isugu jira dil cabsi gelin iyo xadgudubyo kale. Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo ka tirsan Al-Shabaab hadal uu dhawaan ka jeediyay degmada Afgooye ayaa ugu dalbaday dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab inay joojiyaan argagax gelinta cabsi gelinta iyo xadgudubyada ay ku hayaan shacabka. Baaqaasi ka sokow Al-Shabaab xilliyo kala duwan waxa ay ka fuliyeen Muqdisho iyo gobolada ay ka taliyaan falal isugu jira dil garbaash idimo iyo luga jarid loo geystay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka taliyaan. Nuur Xasan Xuseen waa nin dhalinyaro ah waxaana 15 Oktoobar sanadkii 2009 Al-Shabaab ay lugi gacan isdhaaf ah uga jareen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. waxa uu ka sheekeynayaa sababaha loo cuskaday xukunkiisa. xilliga ay gaartay iyo dhibaatada ay gaartay waxa waay waa ka hadlaya waana bishii ay dhibkan u gaaray December 15 ayuu dhibkan gaaray. marka haddii uu gaaray waxa ay geystay nimanka la yiraahdo Al-Shabaab waxay igu eedeeyeen ma jiraan oo yaan aniga iska ogahay oo dambiya anigoo meel iska joogo oo iska ganacsanayo alaab ganacsi weyn ma ahan oo gaari loo meel yaala iyo ay saaran yahay alaabo oo rootiga alaabaha la yiraahdo oo si ganacsahayo ee xaskii meeshaas ka beela iyo waalidadii dhalay meeshaas biilkii uu raadeysto ayay yimideen waxay leeyihiin waxaan u baahanahay inaan nala shaqaysid waxaan irinimay yaabo inaan shaqay karo waa igu soo celiyeen waa tashkiiliyeen waa tan igu soo celiyeen waa tashkiiliyeen saddex mar camal ay tashkiiliyeen tashkiilis ku radaan diiday waxa arkay idoo eed been ay leeyahay rugay maalmaha kamid ah in la yimid waxa la yiraahdaa adiga dacwo lagu qabaa soo bax waayaan dacwo isku ma weyn waa raacay danta waa xabsiga gal leeyahay xabsiga adiga 2 bil camal ayaan ku jiray 2 bil hadii aan ku jiro maalina waxa la yiraahdaa adiga soo bax balniya waxaan isla waa lagu sii day rabaa oo micnaha labadaas canaana intaas laga dhigo haya oo dambiyaan isku weyn marka waa baxay hadii aan baxay waxa la yigay meeshi Kaaraan sarta xawa casir meesha la leeyahay garabkeeda ay igeen niman tuuta isku qarinayo hortana ka duuban ilaa madaxa labada indhood weel ay soo jeedaan ay qabteen hadii ay qabteen lugtay gacantay rufiga siiyeen hadii ay iga siiyeen waa qaadeen baawur xumo meesha yaala la igu riday waa ila ordeen guri laga qaxayo cidiisa deganayno meel gubta leeyahay ay igeen hadii ay igeen mid oo cadeen ah oo timan badan oo hadda xabnaas ka qarno inaan fahmeyn oo uu ogyahay oo gaal iyo meelaas la keenay saaqayaas ay igeen waxa uu lugtaan wax kooma joogto wari shaqadeer waa dhiman tahay lugti waa diiri maqaarkii uu ka soo diiray gacanta sidii uu yeeliyay lugti waa jariyay waxa ku jariyay biro ku jariyay sheeka feeram daan leeyahay ku jariyay guriga lagu jariyay meesha loo dhacayno waa jariyay marka anigoo ugu jiri lugti sheeka feerad markuu ku jiray xoogay waa siriray waa suuxay gacanta mugi oo diiray way laakiin markii lugta oo jarayaan ku siriray gacanti waa ogaalka waa iga tagay waa markii la maad mugi hore dadka oo meesha lagu gooyaa ma aan Soomaa marka intaas sarta ay ila soo mareen aniga nimankaas Al-Shabaab la leeyahay ka baad gurigiisa kay dhigeen ayagoon daawo daryeel igu yeeri sameey ayagoon daawo siin guriga dhagaxaayo ciidiis ay ka qaxdayo hadda ayagana ayaan lahayn oo guri iska loo ahay dhisay dhigeen mid waxa la yiri asiga goorba iska reysanay meelaha hadii la ku roon yahay kor alla ka ilaali marka meeshi sidii aniga ku jiro maalina xoogay asiga fursadii la ka helay fursaddan ka helay gurigu wuxuu ku yiri meel joogo cali garoob geedahan la leeyahay cagaaran
oo ku dhex yaallo oo geedo badan oo fara badan ku yaallo argoon geedan liyo cagar geedihi ay amarkiisu waa isaga gurgurtay qofkan hadii la arko rabin la arko ma mugta meeshii anigoo saaga jiro ayay 9 saac amal ay markaan guriga baxay meel uu raadiyay ma aqaan asigoo u igafiyay meeshii anigoo saaga jiro wiil wadada iska maray meel wadada u dhow yahay ayaan ka kala geedaha waxaan saaxiibkay waxaan u baahanahay in dhibaataysanahay waa jeeda nin gacantiisa lugtiisa ay gacdoorayaan ahay waxaan u baahanahay inaad qaraabadii number ayaan kor ka haystaa inaad ii ogolaatay ii dirtid ayaan u baahanahay ay aan ka salaan oo qaraabadii salaam ay ma ogolaa jirin wax walba telefoon ma ogolaa jirin waxay ogolaa jirin ma wax soo boon kara ma jirin leemo arki jirin ba marka wiilka waa ay numberan maskaxda ayaan ku haystay waa garaacada numberka waa ii dhacay waa mid qaraabadiidaas kala haay waxaan dhameyshaan jooga rafaadkaas ayaan ugu hayo waxaan u baahanahay isla hadda meeshaan jooga waa dhambalanyaro ma noo sheego rafaad waa dhimale ma noo sheego waa nool ayaan dhahay intee jooga meeshaan jooga beledku kale qiina gaari uu soo carriyay meeshii baa warga saarino waa baxay xaafadii ayuu geeyay meeshii hadii la igu daaway qaraabadii ay daaweysay baaritaan iyo wax badan qaraabadii u sameysay ilaahay amarkii waa ii reysatay lugtii gacantii saasay xogay ay ugu reysteen cidiidana iigu dadaashay marka intaas ayaan kala kulmay markii aad soo baxsatay qaabka aad doontaba ku soo baxsay ee aad soo gaartay dhanka qaraabadaada ay deganaayeen xaaladaadu maxay noqotay markii qaraabadayda dhanka ayay deganaayeen haddaan imiday waxaan ku fikiray nimankii shalay saas yeelay anigoo dimbi ka gelin anaan isku ogeyn dad kalena ka gelin waxaan maskaxdayda ka fikiray ayaan ku day waayay inaan hor muuqdo waa ka soo tagay dhinaca kalena Soomaaliya ee dawladda waxaan hadda fikirkayga inaan ayaga wax allaal waxaan ku tiri kara ayaan ku taro oon iskala oo la diriro aniga nin xaasla ayaan ahay xaas iyo deel kuruun 5 caruur ahay joogan waalidkii dhalay waa jooga oo siiyay jiro meel wax ka qabsan karin oo duqooshay aniga ay isla kay fiirsan jireen waa un inta soo karay waa u dadaali jiray oo waa u dabiri jiray marka intaasaan deel kuruun yahay ayaan fikray waalidina oo hadda saasay u rafaadsan yihiin caruurteydii iyo deel kuruun yahay iyo ilmahaygina iyo islaamteydina wax hadda waqtigaas ayaan xamaari jiray hatta waxaan xamaari kara ma leh maxaa loo daliishaday gacan goontaada adiga gacan goontayda aniga ilaa hadda waxay u daliishadeen oo maalinka haday bixiyeen ay meesha geeyeen anigoo isla waa intaas waa ku macnaan oo wax walba uma sii sameeyay anigoo isla ayaan waxaan dushayda ka maqlaba ayuu iga dul hadlaayo waxay rabaan iska sheegayaan ninkaas waa tuugo gobolada Shabeellaha dhaxal laga soo qabtay dadoo dhacayay isfatu ay tahay saasay tahay oo daldalayaan oo lugtay gacanta lagu xukumay laga jara ويقول لها يعني ومغلى يسكت الدلمان. لكن شبه الله ده حمرنا ما أدري. شبه الله ده ما بقى ولا غير ما بيستجمعوا. ما قلت. يمكن تبغى ياخد دعوانا يا. ما حد بشيء اللي هدت كاس. ودت كاس وحنا بشيء يا إن سيد أنا قل لي لا أياني ويقولوا دمر دون تقول لي دون. فنانين الصوماليات أي قاب مسرحية ديو كلا دوان وها أيكم وجيان لبعضها هي ستة لنجردا. iyaga oo farta ku fiiqay dhalinyarada waxbarashada ka sagsaagtay ee ku biiray kooxaha dagaalama ama askarta dawladda. Assalamu alaykum. Waa telefonkayga adiga ma kaaga. Hello. Soomaaliya ana ka soo waay. Hello. Waa jiraado Soomaaliya. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah rabbil alamin wiilkini waa shahiiday wuxuu maanta ayuu ku shahiiday Soomaaliya qarax wanaagsan oo aad iyo aad maqsuud islaamku uga yahay ayuu sameeyay jinnada ayuu galay adunkuna waalidkaatiin jinnada ayaa la gali doontaan asabadiina iyo ehelkiina iyo inta taqaano wiilkaas jinnada ilaahay uu bashaareeyay marka sidaa darteed waxaan ilaahay kuna waalinayaa adinka iyo annagaba asoo kala Allah naga dhigo alxamdulillah rabbil alamin Allah ku qarxi oo Allah ku qarxi oo Allah ku qarxi oo adigana Allah ku qarxi wiilkaan ku galay balaaya ilaahay qoorta nabad waryaa warwaajoga wiil waryaa ku baray adiga wiilkaaga yaa ku baray warwaajoga beentiisa yaa ku baray adiga wiilkaaga waxa kugu dhacay
إيمانك إسقلية إيمانك إسقلية وحاول ويلك شهادة سوى استا تنادو كتير هكا غشغشنينا أذوك لو كنت بتجيسان إيمانك إسقلية بار وحا أذا جبتا أما أبو يرتا روحتا يقين دار يسر كذا كوفيلن يقان ديبا تادا ودا كنا يورسد يقان يا إستا الشباب كله يار ويبوها إيده يا عالم كان أقبيال ومدانا وهذا يار أقوتودا آميان وابوها ويسر دانا هودا فيا شفا إلا اللفا مالا يالا قلب مالا لالو يوبا يكودون قوع مياتك وهذا يارا ميا إلا يحيا وحا هلا روحا دمت يارا هلا يسأل والي دار أكاك حسن الضيح وما تضيع يارا كان القديمة لكن أنا يا أشاق القاعدة إليه لكن أنا يا أشاق القاعدة يا أدني جو يا مسلم ينبقات مؤمن كالا يا أدني جو يا مسلم ينبقات مؤمن كالا يا